danyarta mutadawiciinta ee ururka Sidigmaal ayaa bishii barakeysneed ee Ramadaanta qaabilay afurinta danyarta darbijiifka iyo dadka dhimirka ka xanuunsan ee ku sugan xusbitalka Maandey magaalada Burco. Danyarada ururka Sidigmaal ayaa dariiqyada magaalada ku qaybinayay afurtaasi iyagoo qof kastana ugu geynayay halka uu ku sugan yahay. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Khalid Ciise Xaaji Nuur oo kamid ah xubnaha ururka Sidigmaal waxaanu ka xog bixiyay barnaamijkan iyo sidii ay u wadeen bishii barakeysneed ee Ramadaan. waxaan weeyaan bishii khayrka badneed ee Ramadaan ayaa inoo bilatay dhawaan iminkana gabagaba ku soo dhow dhalinyarada ahaan halkan taagan hadaan nahay ururka Sidigmaal waaxdiisa arrimaha bulshada waxaanu bisha barakeysan ee Ramadaan awgeed bilownay barnaamij khayriya oo ah waxa weeyaan taakule walaalkaaga tabaalaysan barnaamijkaas waxaanu afro ugu sameeynay oo intaas ba maalintii Ramadaan dhalatay ilaa maanta socda insha Allah ta'ala aan ku rajo weynahay inaanu dhameystiro bishaba dadka waxa weeyaan sidoo kale waxaanu u sameeynaa afro taalamida oo maalin walba u sameyn jiray dadka waxa weeyaan ku xireysan isbitaalka Maandey ee magaalada Burco oo runtii waxa weeyaan dad aad iyo aad waxa weeyaan ugu baahnaa ahaa ilaa maalintii Ramadaan dhalatay ilaa maantana way u socotaa afradaasi waanan u dhameystirnaa insha Allah ta'ala bisha barakeysan oo dhan oo barnaamij khayriya oo runtii aan dhalinyaro ahaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan shaqadan noocan oo kala qabano rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxa uu yiri khayrun naas anfa'uhum linnaas dadka wax ugu khayr badan kooda ugu waxtarka badan leh dhalinyaro ahaan waxaan u istaagnay waxa weeyaan inaan arrimaha bulshada waxa weeyaan bulshada iyadu meelaha ay waxa weeyaan ka jilaysantahay inaan ka taageero markay Ramadaan dhamaatana ka urur ahaan iyo ka dhalinyaro ahaan iyo ka waxaaba waxaan noo qorshaysan barnaamijyo kale oo waxa weeyaan bulshada iyadaan waxa weeyaan u tari doono halka kaga harimayno kuma faraxsan waxa weeyaan barnaamijkan oo kaliya inaanu dhameystiro waxaanu rajaynaynaa waxa weeyaan barnaamijyo waxa weeyaan fara badan oo noocaasa inaanu sameeyno inaanu bulshada baro waxa weeyaan oo horseedo inay waxa weeyaan iska wax u sameeyayda waxa weeyaan ku shaqeeyaan inaan bulshada si caawinta iyo waxa weeyaan istaakuleynta aanu ka taageero sidoo kale waxa weeyaan barnaamijyada kale ee soo socon doona insha Allah ta'ala marka ay qorshahooda iyo qaabkooda ay dhameystirmaan ayaanu soo bandhigi doonaa insha Allah ta'ala oo ogaan doontaan bulshada faraha badan ee samaha iyo wanaaga jecel waxaanu jecelahay waxa weeyaan sidayadaas oo kale inay bulshadooda isu xilqaamaan bulshadooda wax u qabtaan bulshadooda waxa weeyaan qof walba waxa jira qof kasi waxa weeyaan liita ka liita inuu eego aanu eegin ka sareeya sidaas inuu waxa weeyaan bulshahaan iyo horumarhaan dhamaanteedba aynu guul ku gaarina horumar ku gaarina wax ku wada qabsanayna waxa weeyaan horumarka iyo wax wada qabsiga waxa weeyaan waa waxa haysido aad hurtid waxa weeyaan bulshadaada inaad hurtid ma aha inaad hadal la soo fariisatid dhalinyaro ahaan anagu barnaamijyo waaqici ah oo waxa weeyaan bulshadaada si fiican sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay Cawil Ciiga Bullaale Amar oo kamid ah howlwadeenada cusbitaalka dhimirka Maandey waxaanu sheegay dhallinyaradani inay gacanta ku hayeen bishii Ramadaan soo gaarsiinayeen afurtaasi waxaanu yiri sida bismillaahir rahmaanir rahiim ururkaas oo mahadsan oo noo keenay bishaaba intaaba noo keenayay Ramadaan sadaqada wanaagsan intaaba anaguna aan ka gudoomeynay dadka xanuunsanayana way u keenayeen intaaba waana ku maatiin wadaduuba ururka Sidigmaal ayaa ah dhalinyaro u kacday daryeelka iyo wax u qabashada dadka danyarta ee ku nool magaalada Burco. Amar Cabdi Saaqadan, Dhabka Hadal TV, Burco, Somaliland.